howlgal ballaaran oo ay qaadeen ciidamada kumaandooska ee waddankaasi Mareykanka ee loo yaqaan Navy SEAL ayaa la sheegay in ay ku soo furteen 2 qof oo u dhashay wadamada Mareykanka iyo waliba Denmark. howlgalkaasi oo socday muddo saacada waxaa ciidamada Mareykanku ay dagaal la galeen raggii burcadbadeeda Soomaalida ee haystay waxaana dagaalkaasi oo sida aad arkaysaan xabad si weyn la isugu harqiyay la sheegay in 9 ka mid ah burcadbadeeda Soomaalida la dilay. ciidamada Mareykanka oo adeegsanaya helikobtaro ayaa iftiinka bullaleerka u isticmaalay inay ku muujiyaan burcadbadeeda meelaha ay ku sugan yihiin waxaana halkaas ciidamada Mareykanku ay ku qaateen 2 qof ee la haystayaasha iyo 5 kale oo kamid ah burcadbadeeda. howlgalkani ayaa la sheegay inuu ka dhacay bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud meel u dhaxaysa Cadaado iyo Galeysoor. ciidamada US Navy SEAL ayaa howlgalkaasi la sheegay inay fuliyeen kaasi oo si toos ah u amray madaxweynaha Mareykanka. ciidamadani ayaa la sheegay inay yihiin ciidamadii dilka u geystay hogaamiyihii hore ee shabakada Al-Qaacida Osama bin Laden. madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama oo la hadlayay wasiirkiisa difaaca waxa uu ku amaanay waxa uu qabtay. madaxweyne Barack Obama kadib telefoonka ayuu kula xiriiray eheladii 2